hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho uu qorshihiisu lahaa dal shisheeye. war qoraal ah oo lagu daabacay bogga Twitterka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in madaxda qaranka ay u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in qaraxii ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye qorshihiisu uu lahaa dal shisheeye. sidoo kale warka ka soo baxay hay-adda NISA ayaa waxaa lagu sheegay inuu socdo baaritaano la xiriira xogta ah in qaraxaas uu ka dambeeyay dal shisheeye isla markaana ay la kaashan doonaan hay-adaha sirdoonka caalamka qaarkiisa. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay magaalada Muqdisho 28 Diseembar ee 2019 uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye. baaritaanka socda si loo dhameystiro waxaan la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamka qaarkiis ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay-adda NISA. wargeysyada dalka Turkiga ka soo baxay qaarkood ayaa waxa ay daabaceen in xogo ay heleen oo ay ku sheegayaan in qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Ex Control Afgooye ay ka dambayso dawladda waddanka Imaaraadka Carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda howlaha dawladda Turkigu ay ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo dalal kale oo kamid ah caalamka. welina ma jiro war madax banaan oo xaqiijinaya in dawladda Imaaraadku ay ku lug leedahay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Ex Control Afgooye marka laga soo tago wararka lagu daabacay saaka oo isniina wargeysyada ka soo baxa waddanka Turkiga. maxamed cabdi xasan iidle raadiyaha iyo telefishinka dalsan Muqdisho.